Bismillahirrahmanirrahiim. Soo dhawaada walaalayaal. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa hab nololeedka Soomaalidu waa mid halis ku ah caafimaadkooda. Runtii waxaan jeclahay in xalqadani noqoto mid dheer oo qaybo kala duwan aan ku qaadaa dhigno, annaga oo isla fiirin doona hab nololeedka Soomaalida iyo qaabka ay u nool yihiin iyo sida ay saameyn ugu leedahay caafimaadkooda. Marka aad fiiriso Soomaalidu, cunnada ay cunaan, qaabka ay u nool yihiin, jimicsiga ama physical activity-ga, sida ay ku yihiin hurdada iyo tacaamulka intaba, waxaad ka dhex arkaysaa in ay jiraan sababo in meel dheer loo doono aysan ahayn, kuwaas in laga dhex fiiriyo ay tahay oo keena in cimriga Soomaalida uu dhan yahay mid gaaban. Runtii cid waliba cimrigeeda Ilaaha qoray inta ay gaaraydo, balse si guud waqtiga la rajaynayo inay dadku dhintaan waxa loo yaqaan ama life expectancy-ga wadamadu way ku kala duwan yihiin. I think wadanka ugu waqtiga dheer ee dadkiisu ay aad u cimriyaan waa wadanka Japan. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada ugu cimriga yar ee dadku 60 sano wax ka yar ay ku geeriyoodaan markii la fiiriyo statistics, inkastoo hadda data saxa aanan laga haynin. Waxaan isdul taagi doonaa oo aan ka sheekaysan doonaa arrimo ay ka mid yihiin cunnada Soomaalida iyo sida ay uga duwan tahay dunida kale. Qofkii dunida kale mara wuxuu dareemayaa inaysan jirin qaabka ay Soomaalida u nool yihiin cid u nool. Marka ay timaado xagga cuntada, waxaa laga yaabaa qofka inuu subaxdii soo kaco haddii uu taajir yahay, haddii uusan waxba haysan, carbohydrate bas cuno. Cunnadu waxay ka kooban tahay carbohydrate, waxay kaleeto ka kooban tahay proteins, fats, waxaa soo raaco cunnooyin gooniya oo diyaarsan oo laga helo macdanta iyo vitaminiska laga yaabo inaysan cunnooyinku idil ku badnayn. Taas waaba dheeraad, balse cunnooyinkii dabiiciga ahaa ee la wada heli karay Soomaalida qaabka u nooshahay kama soo dhex muuqdaan. Soomaalida oo idil subaxdii waxay ku quraacdaan canjeelo, kadibna qadada iyo cashada waxaa la cunaa bariis. Waxaa kaloo mashkiladda iyadana oo aan ka hadli doono waqtiga Soomaalida wax cunto, taasi oo keentay in ama ay cayilaan ama ay ku caata noqdaan, iyo in maanta oo idil uu qofka ka cawdo calaamado uu ku sheegayo gaas, taasoo runtii la xiriirto nooca cuntada uu qofka cuno iyo waqtiga uu cunteeyo iyo sida uu cunteeyo. Sidoo kaleeto, haddii aananba ahayn dadka ugu yar ee physical activity-ga marka ay timaado ama dhaqdhaqaaqa jireed, dadka ugu liita haddaanan ahayn mindha qolada labaad waa noqonaynaa. Qofka Soomaaliga da'du doona ha jiro, ha ahaada nin ama haween, waa isku mid. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada markay 20 jirada yihiin inay banooni cayaaran, laakiin iyaga laftooda qofku markuu soo weynaado 30 sano meelaha soo gaaro, shaqo ama nolol kale ama hawl bilaabo, wuxuu noqonayaa nin iska hawl adduunyo haysato meesha ugu dambeeya. Waana markay soo xiranto in qofku mar dambeba uu sameeyo jimicsi jireed, kaasi oo runtii wax weyn ka ah nolosha. Dunida markaa fiiriso, dadkoo idil oo wada cararayaan, dadkoo idil cunto nafaqo leh cunayaan, laakiin Soomaalidu nolosheeda intaba ma lagu arko. Sidaas daraadeed waxaan fiirin doonaa cuntada Soomaalida cunto iyo caafimaadka khatarta ay ku leedahay. Okay, aan ku horumarno. Soomaalidu taariikh ahaan marka laga sheekeeyo waxaa la yiraahdaa waxay taqaanaa waxa la dhaho cad iyo caano. Cuntaba intaas u garanaysaa. Wixii ka soo haro Soomaalida cunto uma taqaano. Taas waxay keentay inay baxdo sheekada la yiraahdo cayr farmadow. Sida aan ku maqlay sheekada, waxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay ahaayeen dad xoolo leh, qaar dabata ah iyo qaar beeraley ah. Kuwa beeraleyda digir, masago, galley wax la mid ah beertaan. Xoolaheeduna waxay raacaan geela, ariga, lo'da. Ragga dabatadaana sagaarada, dayrta iyo waxyaalo la halmaalay soo dilaan ama badda ay galaan. Sidaa oo ay tahay, Soomaalidu waxaa laga sheegaa in aysan miraha cuni jirin, qudaarta ay yasaan. Dadka aan xoolaha haysan ee cayrta ah yaa miraha soo guran jiray. Marka markuu miraha soo gurto, faraha foodooda hore iyo cidiyaha ayaa laga yaabaa in geeduhu ka xigtaan oo wax ka gaaraan, taa oo keenaysa inay farihii ka yara madoobaadaan. Soomaalida markaas waxay u bixiyeen cayr farmadow. Waa dadkii khudradda iyo miraha cunayay waxay u bixiyeen cayr farmadow. Waxaana loo arkayay dad cayr, iyaga laftoodana waa isu arkayeen oo qofku hadba xoolaha uu leeyahay lagu qiimeynaa. Markaan u nimaano nolosha iyo cunnada looga baahan yahay marka, iyo Soomaalidu maxay cuntaa markii xataa magaalada la soo galay. Soomaalidu cunnada ay cunto dhan markaa fiiriso, saddexda qayb ee cuntada looga baahan yahay inay ka kooban tahay hal qayb oo ka mid ah bis waaye. Haddii soo raacdan qayb labaad soo raacdo. Soomaalidu haddii uusan qofku haysan wuxuu cunayaa canjeero iyo bariis qalayla oo ah carbohydrate oo aanan lahayn wixii kale oo muhiimka ahaa oo inay cuntada ka koobnaato ay tahay, oo fitamiinadii lahaa, oo maxaa la dhahaa borotiinada lahaa, oo faatka midka fiican lahaa. Haddii uusan taas samayn oo dhaqaale haysto, wuxuu ku darsanayaa isla inta aan sheegnay hilib dufankiisu zaa'id yahay. Soomaalida dufanka aad ay u cuntaa, weliba aragti weyn oo waxaa jirta dhahayda dufanku waa muhiim, dufanku caafimaad u leeyahay.
keliya taasoo aan xaqiiq ahayn. Runtii dufanka si guud waa laba nooc, waa saturated fat iyo unsaturated fat. Dufanka xoolaha laga helo waa unsaturated fat, waa dufankan fariista ee subaga noqda ee baruurta ah, waa dufan aanan fiicnayn, waa dufan khatar ku ah caafimaadka jirka guud ahaan, khaasatan wadnaha iyo xididada. Runtii dufankaasi iyo dufan kaloo la xiriiro oo la yiraahdo trans fats, labadaasaa ku badan dufanka oo xoolaha. Waxaana laga qaadaa xaalado caafimaad darri oo haddii si kooban aan u sharaxno waxay keenaan in xuubka unugyada ay flexibility-giisa iyo fluidity-giisa wax ka bedelaan, kadibna ay adkeeyaan, taa oo keenaysa in dufanka dhiigga ku jira ee cholesterol-ka loo yaqaano iyo waxyaalaha la xiriira in aysan unuga geli karin, kadibna waxaa ka imaan karta khatar caafimaad. Sidaa daraadeed adduunyada waa laga digaa isticmaalka badan ee dufanka xoolaha. Hilibku marka uu yahay hilib gaduudan waa hilib aanan fiicnayn, sidaas darteed xaddi kooban ayaa laga qaataa. Waxaa jira hilib kale oo aysan ku badnayn waxyaalahaas khatartaan kasoo sheekeynay, caafimaadkiina u fiican yahay la xaqiijiyey, balse Soomaalidu maba cuntaba markii horena maysan jeclaynoo caabay u haysteen. Waa hilibka cad, waa doorada, waa ama digaaga sida la yiraahdo, iyo hilibka cad ee malayga ama kalluunka oo badda laga helo. Runtii sidoo kale ukunta oo ah maxaa la dhahaa iyadana source ama il laga helo borotiinada, iyadana wax weyn ayay ka tartaa maxaa la dhahaa caafimaadka. Wax badan oo khatar oo lala xiriirina ma jiro, nafaqo fara badan oo ku jirta. Marka qofka Soomaaliga ah wuxuu soo kacayaa subaxa hore, wuxuu cunayaa cunto hal nooc ah oo carbohydrate ah, waxaa la gaarayaa duhurkii wuxuu cunayaa cuntadii haddana mid la mid oo carbohydrate bisa oo bariis ah, iyadoo laga yaabo in uusan ku cunin wax kaleeto oo qudaar iyo hilib oo aan baruur lahayn iyo inuusan ku cunin laga yaabo. Habeenkii ayaa la gaarayaa xilli dambe oo xilliga uu seexan rabay ah ayaa laga yaabaa inuu cunto culus haddana cuno. Waxay keenaysaa dhowrka arrin ay keenaysaa waxay tahay, waa midda koowaad, cunnada halka nooca ee aanan dheelitirnayn waxaa ka yimaada, waa midda koowaade in qofka muuqaalkiisa uu sida Soomaaliga u ekaado. Runtii qofka cuntada oo cuno u egyahay in la dhaha ayaa la gaarsiiyey. Marka cunto isku dheelitiran cunto waxaa noqonaysaa qof isku dheelitiran. Marka hal cunto hal shay ka kooban cunto waxaa noqonaysaa muuqaalkaaga wuxuu u ekaanayaa yiraahdee cuntada aa cunto. Sidaa daraadeed qofka Soomaaliga ama waa qof caata ah ama waa qof calool buuran. Waxa keenayna maxay tahay carbohydrates-kana isku daldalayo jirka xaddi u baahan yahay jirto. Marka xaddigaas la gaaro wixii ka dambeeya waa la iska keedinaya, waxaa lagu keedinaya meelaha baruurta lagu keediyo oo ay ka mid yihiin cajarada, caloosha iyo barida. Dumarka iyo raggu isku mid maahan. Dumarka cajarada iyo barida lagu keediyaa faatka, laakiin ragga waxaa lagu keediyaa caloosha. Sidaa daraadeed qofku waa soo calool dheer ama waa caato, wax ka dhexeeya ma laha. Waxaana keenaya nooca cuntada aan cunno iyo jimicsi la'aanta. Runtii waxa intaas ka daran oo mushkiladda waxay tahay qofka inuu calool buuran yahay waxay fariin diraysaa in beerkiisa uusan caafimaad qabin oo beerkiisa dufan leeyahay. Runtii taasna waa khatar kale, waayo dufanka waxa maamula distribute gareeya ee jirka u qaybiya waa beerka. Marka haddii meeshii lagu keedinayay dufanka oo ahaa caloosha, dufanka uu kasoo buuran yahay oo arkaydo qofku inuu calool dheer yahay, ilaa calooshan dheer hilib maahan, waa baruur. Maxaa u malaynaysaa meeshii laga qaybinayo beerkeed waa kasii daran tahay runtii, taasoo diraysa fariin ah in qofku uu isdhimo, cayilkiisa dhimo, caafimaadkiisa ku dadaalo. Mushkiladda kale ee jirta waxay tahay qofka Soomaaliga ah xilliga uu cuntada cuno ma ahan xilli regular ah, xilli toosan oo saxan ma. Calooshuna waxay sii daysaa dheecaan la yiraahdo hydrochloric acid. Runtii qofka xilliga uu cuntada cunayo iyo xilliga la sii daynayana xiriir toosan ayaa ka dhexeeya. Oo haddaa maanta quraacato oo berri dambe quraacato oo maalinta ku xigto isla waqti siman, maalinta afaraad waqtigaas marka la gaaro gaajo dareemaysaa. Waayo gaajo u dareemaysaa waa xilliga caloosha u bartay inay cunada. Sidaas daraadeed qofka Soomaaliga waxaa ku badan in uu xilliyo kala duwan cuno. Marka qofkii uu hal cunto cunayo oo hal nooc ka samaysan oo carbohydrate ah, qofkii aan si toos ah waqti go'an u cunaynin, iyo mushkilad kale oo sii dheer oo ah qofka Soomaaliga ah waxaa laga yaabaa inuu garab rarata yahay, inuu maalintii oo dhan shaqo ku maqan yahay, markuu habeenkii yimaado waa qasab markuu sii seexanayo inuu caloosha cunno ka buuxiyo. Taasna waa
very serious. Waa khatar, waa waxaan fiicnayn. Qofka waxaa loogu talagalay inta uusan seexanin dhowr saac ka hor, ugu yaraan 3 saac ka hor in uu cuneeyo kadibna uu seexdo. Laakiin lama rabo qofka markuu seexanayo inuu cuno. Waa khatar, waa wax aanan fiicnayn, waa wax caafimaadkiisa qofka khatar ku ah runtii. Marka qofka Soomaaliga ahaa waxa uu isku darsaday sida aan soo sheegnay, kow isagoo cuntada ka cunaya hal nooc oo karbohaydrayt ah oo cunooyin kale iyo waxyaalaha kale inay ka koobnaato ahayd oo dhan ka maqan yihiin. 2 isagoo cunada aanan cunaynin xilli habboon oo marba xilliguu doono cunayo. iyo 3 isaga oo habeenkii markuu seexanayo cuntada ugu xooggan qaadanayo. Intaas waxay keeneen inay soo saaraan qof ama dhuuban ama majo yaryar oo calool buuran oo aanan ahayn wax wanaagsan. Waxaa intaas usii dheer qofkii oo aanan wax physical activity ama jimicsi aan sameyneynin, taa oo keenaysa runtii caafimaad darrida wadnaha la xiriirta inay timaado. Waxaa intaas noo sii dheeraaday civilizationka iyo xadaarada iyo reer magaalnimada marka dadka ay soo baxeen wadamo kale la yimaado, dadka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ay horumareen. Nolosheenii sidaas isaga yara adkeed iyo waxaa kusoo biirtay waxyaalo processed ah oo runtii lasoo warshadeeyey oo lagu soo daray waxyaalo kiimikaala ah kuwaasoo aan caafimaadka u fiicnayn oo dadkii soo saaray laftoodii ay ka deerinayaan oo qaarkood xataa ay ku qoran tahay kaliya dhoofin ayaa loo ogol yahay oo aanan gudaha waddanka laga soo saaray aan laga isticmaalin. Runtii waxaasoo isku biiray waxay khatar ku yihiin caafimaadka qofka. Waxaa anaga mushkilada kale oo aan sii dheernahay dadkaas ka mid a marka Soomaalidu ma cunto cunooyinka ay ku badan tahay diet fiber-ka oo runtii Ilaahay nagu qaniyeeyey oo beeraheena ka baxa oo dhulkeena daadsan. Laakiin Soomaalidu ay liido waxaa ka mid ah digirta, waxaa ka mid ah maxaa la dhahaa dhammaan waxyaalaha xubuubaadka la isku dhaho sida sarreenka ama qamadiga. Waxaa ka mid ah fruitska and vegetables kala duwan oo ugu horeeyaan kuwa vegetables-ka la kariyo sida bahashaan la dhaho koostada iyo wax la halmaalo. Marka Soomaalidu mashaakilaadkaas markaa fiirisid hab nololeedkeeda waxaa arkaydaa in caafimaadkeeda ay khatar ku tahay. Ummad aanan cunto fiican cunaynin, jimicsi aanan sameyneynin, waqtiga ay cunada cunayaan ay qaldan tahay. Waxaa intaas haddana noo sii dheeraaday markii la helay teknoolajiyaddan casriga ah, hurdadii oo noqotay mid runtii iska soo koobo. Soomaaligu habeenkii oo idil wuu soo jeedaa, maalintii oo dhan wuu hurdaa. Runtii hurdada habeenkii oo kugu yaraata xataa 1 saac ba Allah ka dhigay intii loogu talagalay in ka yar hurdadaadii haddii ay noqoto waxaa wajahaydaa xaalado caafimaad darri waxaana qalqal ku imaanaya hanaanka shaqo ee jirkaaga. Waxaa loogu talagalay qofka inuu habeenkii hurdo ugu yaraan 6 ilaa 8 saacadood. Marka waa qasab in qofka hurdadiisa uu hagaajiyo, waa qasab in cuntada uu ka dhiga cunno isku dheelitiran, waa qasab qofka inuu la yimaadaa hanaan uu jirkiisa ugu sameynayo jimicsi joogto ah. Runtii maalinta 15 daqiiqo Allah ka dhigo waa inuu qofku ordaa, waa inuu socdaa, waa inuu heavy lifting ama wax culus qaadaa, waa wax stretching ama inuu iskala bixbixiyo. Laakiin macquul maahan qof dhan oo weyn oo cunayo oo aanan wax tallaabo qaadaynin oo habeenkii oo dhan soo jeedo oo maalintii oo dhan hurda. Qofkaasu gacantiisa ayuu ku sababsanayaa geeridiisa. Runtii marka xalqadan waxaan ugu talagalay inaan uga hadlo hab nololeedka Soomaalida iyo sida ay khatarta ugu tahay runtii caafimaadkooda. Waxaan rajeynayaa in ay ku anfacdo. Haddii aad wax ka faa'iideyna asxaabtaada la wadaag. Waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.